maanta markii aan damcay wada fiican inaan ku socdo ma xad iga hor istaagaysaa aniga ma ku hor istaagsan haddaad wax qabanaysa aniga ma ka hor jooga war lacagta aad ku khamaaraysaan oo aad ku tumanaysaan haddii dadka masaakiinta siin lahaydeen maanta booskaagaad fadhin lahayd anna gurigeen ku raaxaysan lahaa laakiinse madax adeegaaga ayaa halkan ku fariisay maanta waryaa nacas baa tahay aniga 20 sano ayaan siyaasaddan ku dhex jiraa 20 sano aan ku dhex jiray qofkii wadda xun ku socda waan toosiyaa aniga haddana adiga wadda xun baad ku socotaa waa ku toosinaya dadweynaha hindiya oo dhanna waa ogyihiin labadayna oo keliya inaan xafiiskan ku jirno haddii aad wax gaarsiiso aniga 20 sano haddii aad siyaasadda ku soo jirtay aniga muddadan halka sana oo adiga aan kula dagaalay ayaa waxaan ku noqday nin 30 sano siyaasadda ku soo jiray marka xabaddan marka hore adiga kuguma dhacayso aniga ayaa isku dhifanaya maxaa ka daa fiiri indhahaaga wax ku arag fiiri muufad malaay waa ku macday ilaa malaga ku tama xajir dhow waxa laga yaabaa laf inay ka durto ninka weynaa tahay oo mas'uul ah sidii rabtid nafsiga hadleesa arintan hadii wax ka khaweysi ceebta uu kaliya ma xataa dawladda indii waa soo gaaraysa maxaad ku hadlaysaa marka ma waxaad doonaysaa aniga kursigayga in aad ii qoonsatiin maya sheekadaas ma yeelayo kursigan cimrigayga inta ka dhiman in aan saga fadhiya ayaan doonaya marka inaan ka kacna ma rabo adiga ma ogtahay kursigan aan ku fadhiyay afartiisa lugood in ay yihiin shacabkana haddii wax la yeelo kursigayga lug ka mida ayaa ka jabaysay lug hadday ka jabtana aniga dhulkaan ku dhacaya mana doonaya sidaas haddii lug ay ka jabto waxaad ogaanaysaa inta kale kursiga in aan adiga aan kugu tumay kelibiyo xunka ma waxaad hadda aniga leedahay dadkan kala celi maxaan u kala celinaa ma ogtahay siyaasadda inaan saaxiib gaar aynan lahayn waa qawda maqashay waxna u qaban